ku soo dhowaada mar kale dhacdo cajiib ah, qosolna leh. Waa nin safar diyaaradeed ku gaaray magaalo kale, saacad gudaheedna soo laabtay, isagoo la kulmay dhacdo yaab leh. Balse intaynan u gudbin, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka inoo sheer garayso oo aad asxaabta kala gaarsiiso, waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan. Wuxuu yidhi gabar aan Facebook iska baranay oo Kismaayo joogta ayaa iga codsatay inaan kulanno oo aan soo booqdo si aan 2 isbuuc u wada qaadano. Waxaan ku idhi buu yidhi, ma haysta lacag aan hotel ku seexdo 2 isbuuc, laakiin waxaan heli karaa tikidhka diyaaradda go and back. Waxay igu tiri dhib ma lahan oo guri weyn baan deganahay, halkaas baan wada joogi. Waxaan ka safray Muqdisho ilaa Kismaayo si aan ula kulmo gabadha, halkaas cid kale kama aqaan. Dhowr saac kadib Kismaayo baan ka degay, waxaana garoonka iga soo doontay gabadhii saaxiibtay ahayd. Waxay durba i geysay guri 3 qol ah oo isku go'an. Ileen safar baan ahaaye, durba waxaan galay suuliga oo waan soo qubaystay. Waxaan soo fariistay qolkii fadhiga, waxaana bilaabay inaan moobeelka furo oo aan riixriixo, anigoo isku mashquulinaya, gabadhana sugaya. Daqiiqado yar kadib waxaan maqlay albaabka oo la garaacayo. Qof baa si hoose u leh, "Naahiblaya baskii wuu iga tegay, waana soo laabtay, alla safarow dhib badanida." Qofka hadlaya waa islaan iyo nin isla socda. Gurigii waa laga furay, waxayna bilaabeen inay boorsooyinkooda safarka mid dhulka u dhigaan. Intaa markaan arkay ayaan gartay inay guriga amaahatay gabadhu oo uu keedii ahayn. Intay ii soo dhaqaaqda ayay igu tiri, "Fadlan raali ahow, waan ka tegaynaa halkan, aniga ayaana wax kuu sharixi doonaa." Mar kale anigoo weli yaaban ayay inta ii soo dhowaatay waxay ii sheegtay inay amaahatay guriga oo ay iyadu la nooshahay waalidkeed. Ugu dambayntii waxay i geysay garoonkii aan saacad ka hor ka soo degay. Waa xilli duhur ah, nasiib wanaagsa waxaan helay diyaaraddii aan ku imid oo markaas xamar u sii socotaa, iyadoo 1 ruux uun ka dhiman yahay. Wuxuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey wiilkan ay sheekadu qabsatay, "Ilaa hadda ma rumaysan karo inaan ka safray magaalada Muqdisho ilaa magaalada Kismaayo si aan u soo qabaysto keliya." Haddaba saaxiibayaal, waxaan filayaa inaad sheekada ka bogateen. Inoo reeb aragtidaada ku aadan wixii qabsaday wiilkaas. Muuqaalkanna waxaa laga yaabaa inuu saaxiibada kala anfaco, waxna ku qaataan inoo sheer gareeya.